maanta ay taariikhdu tahay 27 Janaayo 2024 waxaan si rasmi ah booqasho ugu tagnay isbitaalka weyn ee degmada Bacaadweyn halkaas oo ay ka socoto shaqadii ugu dambeysay ee dib u dayactirka isbitaalka taasoo soo socotay muddo 2 sano ah haatanna gabagabo maraya taasoo la filayo 30 bisha inuu imaan doono madaxweynaha dowladda Puntland iyo wafdiga hogaaminaya sidoo kale waxa aynu qaybaha dambe ee barnaamijka idin kula wadaagi doonaa waraysi aynu ka qaadnay mid ka mid ah odayaasha deegaanka dadaalkii wax qabadkii ku dara daweyntii khilaafyada ku dara wadoodkii fagaaraha ku dara midnimo doonisteedii ku dara dadaalkii ku dara daweyntii ku dara wadoodkii ku dara daryeelkii ku dara midnimo doonisteedii ku dara dadaalkiiyo ismaqalkii ku dara dulqaadkiiyo waxqabadkii ku dara daweyntii khilaafyada ku dara wadoodkii fagaaraha ku dara midnimo doonisteedii ku dara dadaalkii ku dara daryeelkii ku dara daweyntii ku dara wadoodkii ku dara midnimo doonisteedii sidoo kale waxaan waraysi la yeelnay Ibraahim Faarax Xasan kaasoo in badan ka soo shaqeeyay isbitaalka kana mid ah odayaasha deegaanka Bacaadweyn halkaasoo nooga waramay marxaladaha uu soo maray isbitaalkan 17 sano waqti gelisay 17 sano isla ana joogay si kasta ku joogo isbitaalka wuxuu lahaa islaamna waxay ka shaqeysay 3 sano ka bacdina markay ka gudbiyay ka tagtay isbitaalka ka tagtay waxaan gobolka joogay duqka ahaa in Maxamed Xaaji Xasan uu ka tagayna waxaa la yiri isbitaalka yaa fuliisay fuliga dadkii magaalada joogay markii la yiri waxay yiraahdeen ninkaas aamin ahmed fuliga ilaa waagaas 3 sano baan intii kale waa joogay wax mushaar ah kale ma jirin wax xoolaha igu siiyay ma jirin waa ku soo jabay waa joogay ilaa intaas waxaa isbitaalka yaala 2 motor ceel bilaha 2 motor baa yaalay isbitaalka sidaas uu meeshiisa ku joogay alaab badan oo magaranaysaa qalab oo hoolka weyn yaala waa jiray waxaasoo dhan iyo dhismiga isbitaalkii sidii aan ku hayaa leegu yimid haddana sidii baan yacni ku joogaayo haddii gacanta lagu hayaa horta warbixintiisii إذا هذا الجزء وعمر كأدمنا الناس كدر شيء وكافون ورفاعي الناس قاعد يعني واحد بأن واحد بيسيا ومقرن الصالح تعرف قاعد تقول جاي أنا كتير واي لا شيء رفعت وخلاص وشوي واحد وقف ثاني بجو وعمر كمل أولها بلين مامور بلين وفيه قلت عارف ما تقصني ومدحمنا عن قصني سفي عن إنه يعني دور طبعا وأذن ما كان محلول يبلغيني هذا منام بالليل منام تاسدولد يبان هذا وحلا يوحي وحقرض ما تقول لا سوريا لسكم يمادين هدي مقرن الساعة الله قعدت وهي لو يمادين ما أنت وشرط بدي عنها هدي ما أنت وقت الله انت حدي وتمانشا مركنت الغابو